دكتور علي محمد جيدي وزير ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta xildhibaanad sahro gudoomiyaha jaamacadda dr cabdinuur sheekh axmed dhammaan waxa weeye ardayda quruxda badan ee sharafta badan ee maanta aanu ku sharfayno munaasabadoodii qalinjabinta ee dufcadda labaad ee jaamacadda Somerville marti sharafta iyo waalidiinta ku soo tabcay ardadaas ee meesha nooga muuqda bahda warbaahinta saraakiisha ciidanka qalabka sida dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hawl qaran oo noo dirsateen ayaan ku jirnay baarlamaankaan soo maray oo aan saacad ku soo kordhiyey oo layga sugaya inaan ku noqdo sidaas awgeed baa laysoo hormarsiiyey waxa weeye dhanka brotokoolka anay ahayd inaan ugu dambeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waalidiinta ku soo dhabar adeegay waxbarashada iyo macallimiinta iyo hoggaanka jaamacadda oo runtii horumar aad iyo aad u weyn ku sameeyey muddo gaaban gudoomiyaha jaamacadda ayaa runtii ka warrami doona laakiinse waxa weeye dadka maanta qalinjabinaya waxaa ka mid noqon doona dad markii ugu horreysay dalkeenna oo uu ka soo baxo barnaamijka la yidhaahdo petroleum engineering soomaaliya weligeed ka soo baxo dufcaddii ugu horreysay ayaa maanta ka soo bixi doonta arrintaas sharaf weyn ayay noo tahay dadkii islahaa soomaaliya nimcadeeda iyo khayraadkeeda ajnabi baa soo saari doona kuwii soo saari doonay halkan ay fadhiyaan maanta aad iyo aad baan arrintaas uga mahad celinayaa jaamacadda hal abuurkeedii iyo dadaalkeedii inay ku dhiirato inay barnaamijkaas bilowdo waad la socotaan oo baarlamaanka federaalka ah waxaa la hor keenay barnaamijkii sharciga batroolka ee dalka ayaa la hor keenay dhowaanna waxaan filaynaa in madaxweynaha jamhuuriyadda la horgeyn doono oo la saxiixi doono caqabadda keliya ee hortaagnayd in dalkeenna batrool laga soo saarana ammaan ma ahay wuxuu ahaa dalku inuu leeyahay dowlad rasmi ah oo uuna leeyahay sharci rasmi ah oo shidaalka loogu soo saaro labadaasba waxa weeye waanu gaarnay dowlad rasmi ahna sanadkii 2012 ayaanu dib u soo ceshanay sharcigii qaranku uu lahaana dhowaan ayaa la saxiixi doonaa ardadii ka shaqayn lahaydna halkan ay wada ka bilaaban yihiin markaa waa nimco weeyaan dalkeennu dal wax soo saarkiisu uu xoolaha iyo kalluunka iyo dalagga beeraha ku salaysan ayuu ahaa waxaan u malaynayaa dadkeenna waxaa isku diray oo maalin walba loo leeyahay dad reermiyi ah baa ceel isku dilayo 100 qof iska dilay waa un waxa weeye waa un xoogaha jahli ah iyo xoogaha fakri ah weeyaan marka jahligiina jaamacadahan ayaa dadkeenna ka saari doona fakrigiina shidaalkaasuu ku jiraa baan u malaynayaa maanta waxaan doonayaa inaan xuso dalkeennu marxalado badan ayuu soo maray waqti uu gumaysi ku jiro oo uu gumaysi ajnabi ah oo caddaan ah oo talyaani iyo ingiriis ah ayna haystaan oo ay dadka iyagu gun yihiin oo qofka soomaaliga ahi uusan cod lahayn inuu in dhabarka laga rarta ma ogiye wax kale oo uu haystay aysan jirin baa jirtay waxaa jirtay in marxaladaas dhallinyar soomaaliyeed ay soo halgameen oo ay yidhaahdeen maya yeeli mayno dalkayaga inuu gumaysi ku jiro dalkayaga annagaa iska leh oo u soo halgamay oo u soo dhintay oo u soo baaba'ay ayaa jiray dadkaasi waxa weeye dhiiggii ku jiray idinkana waa idinku jiraayo soomaali bay ahaayeen aqoonta aad leedihiinna ma aysan lahayn laakiinse waxay yidhaahdeen maya way istaageen waa halgameen
dalkoodina waa xoraysteen oo waxaa dad badan bay ahaayeena waxaa muuqaal u ah 13kii SYL baa u ahaa waxa weeye maanta meel buu marayaa dalkeennu xaaladda uu maraya waxay tahay in uu ammaankiisuna ka soo hagaagayo sidii hore xasiloonidiisa siyaasadeedna ay meel mug leh marayso magaalooyinka dalkeennu leeyahay oo dhan waxa weeye oo aan ka ahayn degmada Bu'aale waa nabad dawlad baana gacanta ku haysa sidee bay ku dhici karaysaa anigu hadda 20 sano ayaan xildhibaan ahay waxaa ii hadhay sanadkan 2000 ayaan 20 jirsanaya qaarkiin da'diinaba 20 sano gaarin 20 sanadood walaalayaal waxaanu ku soo jirnay system la yiraahdo doorasho dadban oo qofka muwaadinka ah uusan cod lahayn waxaanu ku soo jirnay xaalad 275 qof ay soo doorteen 135 qof kee badan labada inta soo dooratay inta la doortay 135 baa waxay dooratay 275 caalamka kama dhacdo waxaas kadib waa ka soo gudubnay oo waxaan dhahnay ergooyin baa dadka dooranaya oo 15,000 oo qof ayaan ku guulaysanay inay soo doorato 330 xildhibaan oo laba aqal isugu jira sanadkan hadda ah waxaa lagu jiraa halgan baa lagu jiraa waa idiin sheegayaa halgankaasi waxay tahay qaar leh sida iyadii horaan ahaanaynaa iyo qaar leh idinkaa wax dooranaya qaar leh horumarkii siyaasadeed ee aanu ku taamaynay oo ahayd in dalkan la gaarsiiyo qof iyo cod la gaari maayo iyo qaar leh waa la codaynayaa shacabka Soomaaliyeed baana awoodooda dib loogu celinayaa qof walbaana cod buu yeelanayaa arrinkaas isaga ah shacabkiinu dhexdhexaad baad ka tihiin codkiina lama maqlo rabitaankiina iyo halganka meeshii ugu dambeysay qofka Soomaaliyeed haddii uu qof walba ay xaqa uu u leeyahay inuu cidda hogaaminaysa doorto dalkiisa meesha loo wadana uu asagu go'aan ka gaaro waa halgan weeyaan loo baahan yahay in loo dagaalamo oo loo dhinto waxaan idinka codsanayaa dhalinyaro inta waaweyn waxay rabaan ha sameeyaan dhalinyaro waxa weeye dalka idinkaas kale idinka ah 70% iyo ka badan xorna ma u tihdin codkiina cidaydan hogaaminaysana ma doorataan qodobka 22 dastuurku wuxuu sheegayaa muwaadin walba wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo inuu wax doorto in la doorto xaqeedii waa la hayaa laakiin inuu wax doorto xaqiisa lama hayo weli arrinkaas oo aan loo halgamin oo aan loo mudaharaadin oo aan loo bannaan bixin oo aan cod dheer lagu dhihin maya sidii hore ahaan mayno dalka iyagu dimuqraadiyad buu gaarayaa dhalinyartuna iyagaa codkooda la baxaya arrinkaasi horumar siyaasadeed la gaari maayo idinkuna xor ma sheegan karaysaa arrinkaas halgankiisu waa bilow codkiisana shacabka laga doonayaa inay sheegtaan inay sidii hore sii ahaanayaan iyo inay doonayaan inay codkoodii ay xaqa u lahaayeen dib u soo hantaan waxaan tegay magaalo la yiraahdo Jariiban sanadkii 2015 gobolka Mudug bay ku taallaa barigiisa aniga iyo waxaan ahayn wasiirka dhalinyarada isboortiga Marwa Khadiija Maxamed Diiriye iyo xildhibaano kale ila socday muwaadiniinta meeshaas ugu tagnay dadka meesha degan 100,000 qof kama yaray waxay yiraahdeen waligeen dawlad baan arag dawlad Soomaaliyeed mas'uuliyiin dawladda ka socda oo Muqdisho ka yimid nala abuuriyo babaan arag bay hadaan waxa ugu dambeysay doorashooyinkii 60meeyadii ayaa ugu dambeysay mas'uul Soomaaliyeed oo u tagay halkaas hadal jeedin baa ka jeediyo waxaan ku yiri boqolaalkiinan kule meesha jooga ee weligood aan dawlad arag ka warrama dalku hadduu lahaan lahaa siyaasad xor ah oo qof iyo cod wax lagu dooranayo Soomaali walba maana idin dul taagnaanay ilaa cod baa leeyihiin